dadkaan aqaanaa aan ka soo jeedo dad quursi qaata ma dad baqda ma nimankaan reer abkowgayna oo abgaalweyne liiraahow waxradaan gacnaha ka haynaa lugaha ka qabso wallaahi billaahi tallaahi haddii qof kale ku imaan waa iska dhicin kartaa iska dhiciyo halkan oo ah duleedka degmada Moqokuri ee gobolka Hiiraan maanta waxa ka dhacay shir heerkiisu sareeyo oo ay isugu yimaadeen agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya ku metela gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle saraakiil ciidan nabadoono cuqaal iyo hogaamiyaasha macwiisleyda ka dagaalamaya bariga gobolka Hiiraan shirka ayaa guud ahaanba waxa uu ku qotomay laguna falanqeeyay sidii xoogga loo saari lahaa isla markaana loogu midoobi lahaa kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ee duulaanka ku soo qaaday deegaanada nabdoon ee ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo goobta khudbad dheer ka jeediyay ayaa dhinacyo badan kaga hadlay oo ku aadan in dawladdu kaalinteeda aad u soo buuxiso in qabiilada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa haybta ay wadaagaan ama ay dawladnimada wadaagaan dadkan gaar ahaan beesha xawaadle ay qayb ka noqdaan dagaalka iyo sidoo kale in dadka xawaadle ee hadda dagaalka ku jiraahi ay khibradooda kor u qaadaan sidii cadawga hadda dhaawaca ah loo dhameystiri lahaa markii aan imaanayay maalintii Isniinta oo aan xamar ka imaanayay aadan ayaa u walwalsanaa oo waa dareensanaa maalmo adag in la soo maray oo aan luminay oo dad badan oo qaali nagu ah oo ay hortayna ku shahiideen Alle raxmo inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacaana Ilaahay caafiyo laakiin markii aan maalmo joogay oo aan u kuur galay xaaladda say tahay qalbigu waa ii qaboobay waxa ii muuqatay amaan ogaaday dadka deegaankan iyo inta la xiriirtaba ama ay hayb wadaagaanba inay go'aan qaateen oo ah wixii la dhihi jiray ama gobonnimo ama geeri halganka aad ku jirtaan runtii waa halgan oo taariikhi ah oo muddo soo socday oo adag idinkuna aad u heedeen shumcii ifaay ama lafdhabar aad u heedeen halgan waxa loo leeyahay qof kasta ma geli karo qolo kastana ma geli karto waa wax qaraar laakiin mirihiisu ay macaan yihiin asal waxa uu halgankaas waxa loo dagaalamayaa waxay tahay xornimo waxa loo dagaalamayaa waxay tahay sharaf waxa loo dagaalamayaa waxay tahay xiqdiga dadkaaga oo ehelka ah ama maalkaaga in nin kula fac oo bin aadana oo san hortaada soo doona ka yeelin kuna takrifal runtii waxa lagu jiraa halgan waa halgan sideedaba dad koobana gala oo ama qolo ah ama qoys ah ama qof ah halgankaas asaga ah marka anaga qaali u nagu yahay wax badan aan qiimo badan aan soo bixin maanta marka ma rabno nimankaas waxay aaminsan yihiin inay inta xanuujiyaan oo aan u adkaysan wayn inaan difaacidaan ka baxayn inay inta sanka naga duraan waxay nabad ugu sheegaan oo annaga nala isdhiibis inaan ku qasbanaa doonno inaan sameeyno maalmo dhaxdaana nin odayaho meeshan ka tagay xamar ku arka wuxuu ugu yiri Moqokuri labada maalmood soo socota suu ku taagnaado adagta waxaan ku yiri taas adaa yiri Ilaahay ma dhih dadkaan aqaanaa aan ka soo jeedo dad quursi qaata ma dad baqda ma dad beentu saamaysa ma dad isku kalsoon oo ehel ah oo aan shushub ahayn waa marmarka qaarkood halganka marka qolada safka hore ah oo birta hore leefaysa waxa badbaadin kara kuwa ka dambeeya hadda anagu waxa leenahay guud ahaan hadda reer Hiiraan waa ku dhihin meeshaan waxa jooga xawaadlaha jooga laakiin waxa jooga Jajaale gobolkan ma degana Jajaale iyo xawaadle kaliya waxaan codsi u soo jeedinayaa in dadku soo raaco naf iyo maalba waxay u hori karaan inay u soo horaan gadaal waana la ka dambeeyaa galmuduga naga dambeys galgududa naga dambeys walaalaheena joog hadda waa gacan banay olma saarna kan haduu meeshan ku adkaado oo malaymaha inuu xaqana qorshuhu yahay inta qabsay xagga dhaaf inuu yahay aniga ilama
waxaan anigoo magaciina ku hadlaaya iyo magaca dawladda Soomaaliya abiil ama aan codsi u jeedinaya in waxa meeshan ka taagan shabaab maanta waxa u haray waa yar yihiin aan israacino guul aan idinka baqaylayna ma jirto guushana waa isla leenahay guul daradana waa isla leenahay maanta garab aan u baahana waa hadii hilib isku keenay yaal waa hadii Soomaaliyeed naga dhaxayso waa hadii ehelnimo ay jirto waa hadii dawladnimada hadda la haayo oo intaan ummadu ay dhiigeedu u bixinayso ay naga dhaxayso gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ee halkan ku sugnaa ee kamid yahay xildhibaan Maxamed Buraale Raaxeeye iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey iyo dhamaantood ayaguna hadlay oo goobta ka sheegay in dadka reer Hiiraan inta ay gabari ka nooshahay aysan ogolaan doonin in khawaarijtu dhulkooda ay soo gasho dhammaanteen uma baahnin inaan iswacyi gelino dhammaanteen uma baahnin dagaalka aan ku jirnaa nooca uu yahay ajirka uu leeyahay qiimaha uu leeyahay iyo dhinaca kale haddii aan ka baxno ama aan naloo ka guulaysto Soomaali iyo innagaba yacni dhabarjabka uu ku yahay isu sheegi mayno waa baraarugsannahay waa ka dheregsannahay dhammaanteen waxaan halkan isugu nimid qof la soo tuugay ama la soo tumay halkan ma joogto dhammaanteen waa qadiyad iyo mabaadiidaasaan rabnaa inaan iswaraysanno dadku waa kala lakab waa kala raato qofka meesha ugu dambaysa ku jiro oo dagaalka ku jiro iyo qofka taakulada ah iyo qofka amarka bixiyo riboodkana qaato iyo qofka ilaa iyo heer federaal nooga yimaado oo dhabarka dambe naga taagan intii ka dhaxayso halkan waxaan ku fadhinaa intaasaan isugu jirnaa waxaan rabnaa in iluu waxay u jeeday aragtaha la yiraahdaa aan ogaano meesha ugu horeyso oo furunta ah waxa ka socdo inaan warbixin dhab ah ka helno meesha ugu sareyso oo dawladda federaalka ahna yacni qaybta ay naga taagan tahay halkan aan isku khulaasayno anagu madaxdiina horta waa idinla joogi doonaa waa laga yaabaa dadku qaar dan inay aadaan ay soo noqdaan laakiin inta maqanaaba imaan doonto waxaan rabnaa shirar inaan halkan ku qabsano ilaahay hadduu yidhaahdo oo reerku u dhexeeyo aniga hal kelimaan diri rabaa Sanbalosha wixii war haylaayay wixii maanta ka dambeeyo dadka horta gudaha joogo waa la socdaan xaaladaha meesha ay marayeen oo reerka xawaalaha ku abtirsado dadka dibadaha joogo oo qurbaha joogo wixii Kenya ka bilowdo waxa laga rabaa caaw wixii ka dambeeyo jaaliyad inay u shiraan ee u diyaar garoobaan halgan kii hore aan soo galnay ku ka adago ka dhib badan wada dheerna in la sugayso waxaan isleenahay dagaal haddii la galaa wuxuu u baahan yahay dhabar adeeg badan dagaalka haddii la galaa waxaa imaanaya eedo waxaa imaanaya in la is eedo waxaa imaanaya in mataqaana daloolo badan ay yimaadeen waxaan rabnaa daloolaha in la yareeyo inaan is eedin in midnimo lagu shaqeeyo waxaan qiyaasaa beeshaan meeshaan fadhida maanta dagaalka waa ku kala badan tahay laakiin kuma kala maqna hadday asbuuci hore ku kala maqneed maanta kuma kala maqna waa ku kala badan tahay laakiin kuma kala maqna waa midnimo jidkay soo haysaa waa joogtaa waa yimideen wixii maqanna waa soo socdaa taasaa midnimo ah waxaan isleenahay sida aan anaga asbuuxad waxaan joognaa 4 maalmood waxaa wax weyn ah oo xaqiiqdii ummadda Soomaaliyeed in ogaato ah dadkan meeshaan fadhiya inay u midoobeen dagaalka dhulkan anaga iskale inay nimankaas mataqaana oo ka yimid boqol qaaradood ka yimid Asia iyo Africa ay ka yimideen dadka muslimka oo mataqaana Soomaalida oo ku yiri oo go'aansaday inay dhulkan inta naga qaataan ay ku noolaadaan waxaan u sheegaynaa inaan dhulkeena aan difaacan doono inaan dhulkeena kaga adkaan doono waxa goobta iyaguna goobjoog ahaa saraakiil iyo cuqaal iyo hogaamiyaal ka socday beelweynta Jejeele oo maalmo ka hor halkan u soo gaaray gurmad ay u fidinayaan walaalahooda xawaale ee dagaalku ku furan yahay halka waxa ka hadlay Cornel Isaaq Cali Cabdulle oo isaguna khudbad dheer halka ka jeediyay taasoo ku aadan in guud ahaan khawaarijtu halkii ay joogtaba ay waajib tahay in loo midoobo dadkan waxaan leeyahay war waad guulaysateen xaqiiq waad guulaysateen xawaale waa guulaystay cadowgana Allah ka kormaray oo duceynina waxaan ogahay maalintii laga bilaabay dagaalka matabaan ee ka soo bilaabay iyo qabnaan ka soo bilaabay ala jeetan la socdaanay maxaa Usmaan Aawe ma kacay iyo markii la Xasan Faarax ragaasaan la socdaanay ilaa teedaan ilaa Bukre
ilaa hees ilaa aan ka hoban ceel helay intaasaan la socday qaybta dambe ma joogin aniga waxaan ahay taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan dadka mas'uulka ka ah waa aniga qabiil ahaana dadkii la dhashay waay hadday qabiil tahayna qabiilkayga inay yimaadaan oo halkan ka qayb qaataan horena u qayb qaateen haddana waa ka qayb qaadanayaan mana loogu mahad celinayo in badanaa loo mahad celiyey mahad celin ma aha waajib saaran waay waxaan leeyahay dadkan deegaankan waxaa lagu yaqaanaa gobonimo waxay ku astaysan yihiin geesinimo waxay ku astaysan yihiin gumaysidiid taariikhda Soomaaliyeed cid been ka sheegi karta ma jirto hore looga ogaay hadda la ogyahay shabaab idin gumaysan maayo wax la mid ah yoos idin gumaysanin iska dhiciye waa iska dhicin kartiin wallaahi billaahi tallaahi haddii qof kale ku imaan waa iska dhicin kartiin shabaab iska dhiciye waxaan ognahay shabaab waxay yihiin aan ognahay tabartood waxay dhintaan ognahay meeshay joogaan aan ognahay nabadoonnada halkan ku sugan ee reer Hiiraan ayaa iyaguna dhankooda ku nunuxsaday sida ay ugu diyaarsan yihiin diyaarna ay ugu yihiin in ay khawaarijta iska xureeyaan iskana celiyaan waxayna baaq u direen dadka la deriska ah ee walaalahooda ah in ay ku soo garab istaagaan dagaalka ay ku jiraan si gaar ah beesha ay heybta dhaqanka dhaliyada iyo derisnimadaba ay wadaagaan ee Abgaal Cismaan oo ay ku sheegeen in hadda khawaarijta gacmaha ay hayaan ay ugu daraan in ay lugaha qabtaan oo dagaalka ay soo galaan nin baa la yiri xoolaha maad kooy dhahdid waa adiga tubtahaaye markaasuu wuri hadday ila tagaan inta ariyaa mari wax farkay ahaay hadday ila tagaan waa ii jeedaan xabba Soomaaliya uga cabamayna waa loo jeedaa hadayna wax nala qabanaan oo nala dhimanaan waa naloo jeedaa in xoolaha la dhaafin oo mirista la dhaafin oo ceelka la dhaafin oo sunta la dhaafin oo geel indha laga bixin oo xamaara tahay oo afarta qableeyda Soomaaliya waa loo jeedaa wixii Hiiraan lagu la sheeruhu waa noo jeedaa wixii dirisnimo lagu la sheeruhu waa noo jeedaa wixii diin lagu la sheeruhuna waa loo jeedaa wixii dawladnimada lagu la sheeruhuna waa loo jeedaa kaalay wiilkaadoodii hiili tiriyo naagtoodoodii roonaan tiriba waxba kama raaca xabba u cabameyn inta gabiirba laga noosha waana loo jeedaa ciddii diin iyo dadnimo iyo dirisnimo iyo gobonnimo dan looga leh oo ama nala diris ama nugu hiliba ama noo dawlada waxba yayna daba dhigan hadda waa noo jeedaa haddii naloo imaan waayana annaga inta 10 nin laga soo heri afka iyo gacantaa la taagan cid kastoo la soo maagta iyo cadowgan afka iyo gacantaa la taagan hadda meeshay ka salaxantahay waa loo jeedaa culummada noo sheegtay cibaadada cawadii u kacayno maaragtay u dheelmanayno in meel dhow Ilaahay loo keenay oo nimakaas aan ku cibaadaysanayno ninkay dilaan ahlu janno halkii dilaa ahlu janno halkii dhaawacmo dhiigiisu daatay nuur aan qiro saasa culummadu leedahay kow naftayna iyo nacfigayna ay u socdaan waa wax la og yahay oo waxay la soo marsiyeen aba ay soo mareen aan ognahay ma waxba noo heray ma fikrad kale oo nimakaas hadda kadib aan ka sugayno oo ka qaadanayna jirta waraamay jirta Soomaaliya ogow hada dagaalku wuxuu ka furan yahay waa maqlaysiino gobolka Hiiraan oo ka furan yahay aa u jeedin barigiisa oo ka furan yahay barigiisa laakiin waxaad ogaanaysaa in Soomaaliya oo dhan sidaas loo rabo anigu nimaka waa tusay markii hore in maaragtaa la darbaaxi karo waa tusay oo la iska difaaci karo markaan hore u shubnana waxa la hayna marka badda lagu shubayaa waaba laga hero gacnaha la deeysta hadana waa soo rogaal celiyay hadda waa is haynaa ilaahayna markiisa waxaan isleenahay xawaalana waxaan leeyahay xawaalow sharafaad leedahay maxaa yeelay dhulna kala malihid ceel kala malihid wax xuduudahood kala leedahay ma jiraan
soomaalida kale waa dirirtaa waa isdhamayday ayada islaayday xawaadla diriro maarka hadana ma jiriyo fartaad aheed waay hadana waxaad ogaanaydaa in dagaalkii uu kugu furaya waxaan u mahad celinaynaa walaalaha naga soo gaaray oo jajeele aan hadana boqolkiiba boqol u mahad celinaynaa nimankan reer abkowgayna oo abgaalweyne liiraahow waxradaan gacnaha ka haynaa lugaha ka qabso waa kuu sheegaynaa haddaan gacnaha ka haynaa lugaha ka qabso berga fursad weynaad haasataa ka faa'iidayso anagu dhurwaagii dhagiisaan haynaa annagana inta gabrow naga nooshahay ma daynayna labada dhagoodaan haynaa waxaan si gaara ugu sii mahad celinayaa ragga saraakiisha maalintii halkaan aadan yabaali hadda inta ka dhaxaysaan dhufayska ka bixin oo dadkii shacabka ay mas'uulka ka ahaayeen wali dhufayska kula jira oo aadan yabaali 13 kiiloomitir u jira oo ilaa maalintaan ka bixin saraakiisha iyo dadka macawisleydaana si gaar ah ugu mahad celinayaa bahdi mahad celin waxaan rabnaa marka annaga dadkan reer Hiiraan oo raggiga hore sheegeen iyo maaragtay dadka reer Hiiraan ma ahan kaliya xawaadla waa badan yihiin odayaashiga horeeya waxay dhahay maanta Hiiraan waxa u taagan laba qolo jajaale iyo xawaadla u taagan aadaan u soo dhaweynaya eragaas waa sax waa kuwaana jajaale saraakiishoodii iyo shacabkoodii kulli waa yimideen dadka kalena hadda raga yiri maaragtay walaalkoodii hiili tiri naagtaada waxaan cunaysi tiri labadaba dareen ma dhaafo dadka kale hadda raga intaas ku filan waxaan rabnaa oo kaliya halkaan dadka arintan iska leh oo dhurwaagan dhagiisa dadka la dhashay oo haybahaana la sheeganaya dalahaana la sheeganaya haday qurba jiraan iyo haday gudaha joogaan waa inay degdeg u yimaadaan iyo haday Itoobiya jiraan halkaan hal yimaado waraabahan la dhameystiro nimankan waa dhameystiray joogaan inaan dhameystirnana anagu diyaaraan u nahay laga mana yaabo ninka la yiraahdo booska cilmi hagarana maanta joogo ligu bedelay Allah u naxariisto waa shiidi anaguna in shiidaan diyaar u ah laga ma yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen laga ma yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro laga ma yaabo anagoo nool Soomaaliya intaas aan sheegaynaa